أنا سوى مع سنتهاي أديك بعض الصحافة ضوء سلامية فريتون كي بقولك أنا وحنا هاي أفهيين كتبنيال كجادين ليدا ما قاعدوا عليه عبد الله على فارق هاي وحنا هاي أفهيين كتبنيال كجادين ليدا دبعتها عن كعراني إنه أورنا هيسا وحوي عدالة ضفو مسوق ماسو نحوها هاي ظلم شوكته الدنك إلى أورنا لقوهيو oo awal ay nagu hayaan nimanka kambaniyalka sheegtay oo burcadka oo ilaahay aan aqoon oo aan muslimiin yihiin la oran karin awal waa nimankaas tan labaad waxa aan ka cabanaynaa maamulka dekada ninka la yiraahdo Suuriye ee maamulaha dekada ah gaari 7 maalmood dekada ku soo jiray foolay ku soo jiray boona gaari waxa loo gooyay la bisha labadeedii 7 maalmood ayuu ku jiray faylka shalay buu galay markuu galay baa la yiri dawladda u bixiyay waa amar ku taaglayn waa ninka la yaa wuxuu rabaa sheegaso wuxuu rabaa corruption in lagu siiyo 8 maalmood buu foolayka ku soo jiray oo intaas askari hadba kala wareejinaysay oo lahaa mobilku ha dhawaaqo midka ugu yiri $10 tuur 12 tuur 15 tuur 10 tuur intaas waxaan ka cabanaynaa maamulaha dekada waxaan ka cabanaynaa booliiska wadada dekada laga bilaabo ilaa meesha laga soo baxo magaalada ay ka soo baxaan wadada taagan labo waxa weeye waxaan ka cabanaynaa kambaniyalka lixda kambani ah oo dekada u xiran tahay oo lacagta dadka dhiigga ka shaqaaya shacabka oo lacag aysan qaadi karin 24 hours ka qaadaya gaarigii markii booliis ama qabsado ama dekadii laga soo saarana aan ku aqoon oo waxba qabanin oo leh lacagtaas ay qaadaan 130 bay boonada ku gooyaan 10 bay ku qoraan waa gartay waxay yiraahdaan wadan qaar ku dhisnaa qaar laaluus baan ku bixinaa waxaan ka cabanaynaa wasaaradda gaadiidka ninka jooga ee agaasimaha guud caalika iyo ninkii hore oo wasiir dawlaha Cabdiraxmaan Dheere nimanka 8 sanadood shirkadda la nimanka kambaniyalka oo tuugada oo cusuliinta oo dadka dhiigga ka shaqaaya nimankaas oo shirkad la ayaa ka cabanayna waaya Cabdullaahi sida aad sheegtay waxa tahay afayeenka gaadiidleeda dhiban ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dhibka ugu weyn cid idinku haysa shakhsiyaadkaas dadka ku dhageysanaya u taaboona caday waxa ugu weyn Maxamuud Cumar Cadaan gudoomiye uu yahay Maxamuud Cumar Cadaan baa gudoomiye waa lixda kambani weeye Maxamuud Cumar Cadaan baa gudoomiye waaya Maxamuud Cumar Cadaan kumxuu ahaa waxaan codsanaynaa madaxweyne ila ra'iisul wasaare ila wasiirka gaadiidka waxaan codsanaynaa in la ka qabto dib bay nagu hayaan lacagna qaadi karin bay naga qaadaan markii 3-4 siniir galaan baa inaka siniir noo sii daayaan intaasna wadadiiba booliisu u taagan yahay oo leeyahay mobilku ha dhawaaqo ayaa nimankii gaariga weeyna baahi ugu baqtiyeen ninkii gaariga lahaana maskaxdii gubatay gawaaridii dibay qaba adeer gaari waxaan ka dacwoonaynaa ugu horeyn lixda kambani in la ka qabto oo lacagta xaqdarrada naga qaadayo oo aan gaarigii wax loo soo xiray $130 bay ka qaadaan boonada ku gooyaan $10 waa ku qoraan cadaalad maaha ninka shacabka oo gaariga leeyahay kama helo intaas waa cadaalad darro waa lambar 1 kan labaad waxaan ka cabanaynaa booliska gariska uu ka soo baxay ilaa dekada dhexdeeda baabuurka kala wareejinayo oo 24 hours le mobile ku dhawaaq waa gartay waa labo wasaaradda gaadiidka oo lixda kambani shirkad la in la ka qabto ayaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa in la ka qabto arigacal ninka la yaa oo agaasimaha shirkad buu leeyahay lawyer buu leeyahay shacabkay buushilkoodeen inay dulmaan waxaan ka cabanaynaa oo kale ninka la yaa agaasimaha guud ee magaalada dekada Muqdisho ninka la yaa Suuriye oo
بعد أسوي الدنيا ذكرت بابور صدام برود أنا سداد بري أنا لا بري وضل كسوتري سمركو سوق ولا يأكل ولا شيء أسوي بعد إنه خلاص إلا السيو 24 hours يا بعد إلا السيو أو الدنيا لا لوز إلا السيو أيانو كعواننا إن لك قبته باقي رسول كسر على مدحوينها وغري مدح ملك الرئيس والصلاح متجو رئيس الوزراء وزيرك قاضي قولك وعن أصينا إن لك قبته تدكاس وبابعني وحبكم النورين ما وطنين بانهي ninkay gaan kula hadlayaa aniga labadii isticmaal ee wadanka gumaystay Ingiriis iyo Talyaani labadaba waa kula dagaalamay ninka baabuurkayga tisleeda bari markuu wadada ku soo jeeyay dawladda u bixiyay la yirina ma uusan dhalan dhiigaygaan dekadii aan u daadiyay oo aan u dagaalamayay Maxamed Siyaad Barre dhowr iyo 20 sano wadanka xukumay marka anigu dhiigayga aan u daadinayo xornimada u doodayay askartii taabacsanay Talyaaniga oo u dagaalamayo Boorgareys ayuu ahaa Soomaaliya garan dulmiga siyaasi maahi mucaarad maahi waxa ma garatay xagtir maahi waxaan ka cabanayaa dulmi laygu hayo oo cadaalad darro ah oo annagoo dhan ku hayo oo gaadiidlayda sam kontrigla ee dekada Muqdisho lagu hayo ayaan ka cabanaynaa waa gartay Cabdullaahi Cabdullaahi waxaan noo cadeysaa dhibaatada ma kaliya ay ku haysataa mise dadka aad afayeenka ku matalaysa dhibaatada dhamaantooda lagu hayaa kulligood baa lagu hayaa 24 saac ay agdoodan yihiin anigu sidii nin wax u qaban kara hadal baan ku ekray kulliga nala ku hayaa aniga mid gooniyaha laygu hayaa waxayo in cadeyn u ah in laygu hayo Maxamed Cabdullaahi Omar ninkii looreeyay wasiirkii hore gaadiidka ليش بوشي بسيان ودبا تاغنا او ninka xaq buu leeyahay odaga ee hala siiyo dib uu nimankii kambaniyalka kaga iibsaday bal eeg cadaalad darro inta ka jirto nimankii aniga ila mid ahaa oo xildhibaan ku waday oo toban beri kaliya booliska ku jeeyay dacwadda inuu isku maalin nasiyo labada kambani walaaqdi waa ayaa shahaadada ahayd ra'iisul wasaaraha wasiirka gaadiidka u dhiibay ra'iisul wasaarahana waa ugu dhiibay soo galaad meeshii waxa uu dib uga iibsaday nimankii oo la yiri hanugu siini ee naga iibso asagii dib uga iibsaday cadaalad darrada jirta nimankii kale oo xildhibaanku waday 100,000 baa laga siiyay wacli kambaniyalka ugu badanaya 100,000 qaata niman gaadiid la ma ay ahayn niman wax doonayay ahay 100,000 baa la siiyay oo kaasha inaan meesha waxba ka jirin ee usuliyada ka jirto oo cadaalad ka jirin taasa cadeyno ah way afayana sababahan in labor tilmaameysanayo sida gaarka aadna ku sheegtay in si gaar ah bartilmaameed lagaaga dhiganayo marka aad fiiriso adiga maxaa ku qeexda waxa sabab waxna ku sheegaya sabab waxa anigu nin bini'aadan oo wax fahmayana لحظة سنة ترانسبورت بعدها بروفيشن waa أشوفها ترانسبورت كنتم لحظة ما هنا كنتم إيا شنتي إيا ما أنتي حرنولا قادنا أنت كده له بسجل الدجالة وورك حبيس كل دجالة وورك يورك كل دجالة هي كم دعاء مركز دنيا النوع أنا مقانا كائن صحابتنا نقطع وجود كانوا وحلو فهم يا أنا كنت خنوس ليلاهي خرجي كلام وحفاهمي وين لاجين وصدق في نلو أبوه وين كنت لو كدومي منها أو كم يعني كلي معالي والسواحلي أو كم يعني كلي حاش خوتي أو كم يعني محمود لاري أيك الدليل ولا في الدليل قالوا أيك الدليل إلى الدليل عدين وحواه مدحرات ما سميني ليش مدحرات دقيقة نقول مانية شبابنا وادينا أنه ما ندلي وليالك الشقة كمالي ما دارني ممكن أكد عوني إنه مدحرات دبدا وصوب عني وقالوا سيد دبدا وصوبني لماك قرح نودي يقول لا يا هاين صدقني إنه هو المركز دليل أنتي كلاتو نكا حياتك وها إلا مركز أنا بوها ninkani waxbuu fahmayaa oo dacwad buu naga gudbinayaa oo waa nin hadlaya intaasay ugu bartilmaameedsanayaan oo ay ugu dilayaan gaarigayga markii 3 baabuurta kala gasho ayuu galaa xataa kuwa tam kontratiga dhowrtii markii galaa baa anugu barkala Soomaaliya garan waxay ugu bartilmaameedsanayaan oo aniga
maxaad u hadlaysaa maxaad wax u fahmaysaa aan ku rarne maxaad damqanaysaa caalamka wax jirana ma waya afyana miyay jirtaa wax ilaa haatan maamulkii gobolka iyo tii dowladda dhexe madaxweyne farmaajo 4 sano la soo dhaafay dalka uu hayay ee culayskan iyo baadan iyo tuugnimadan ay idinku hayaan shakhsiyaad fara ku tirisa oo aad inta ka carbaabisa magacyadoodna aad sheegtay u gudubteen iyo falcelin maamulka aad ka hesheen miyay jirtaa أنا سوا ما سمتاي وحوي مايا جوابت ومايا أنت ميديهن تاجني أنت ميديهن تاجني مدول بوان هذا الله أنت أصو فيسبوك وأنا وعليها إذا عدى دي غلطي أو أيضا دي غلطي أو كرسن دي غلطي أو محاها مستقبل دي غلطي أو أي غلطي جوبشوك دي غلطي أو أنت صحافة مدى الناس تجن مايا حفيز ده يدو ليه أن القرآن على سجين مترتو إلى وطن كعدالة كترين والدولة دي كترين ومامل كترين وإسلامي كترين السورية دي كترتو وها عدلوها وإحنا وحس قادي متران مدحوينها قرن كمحمد عبد الله فرماتو أيا وين تون تفهم ميديا هنتاجنا فيسبوك قال كترنا ولا قال ما بدينا مدحويني إلا قبل إلا مال أنت كده على أجاسبي أيانو جيني وإحنا وحس قادي مالي إلى أن ودن كوحدة كترين عدالة بالرأي مسقماصو وإحنا هنا تكترين تاسع عدينوها وقرت أفينا أديكو إيسو قابينا عضدك يوريسيد عن قادينو مادام وقتك وكوبين هاي waxaan ka rabnaa arintan soo bilaabatay culayska dekada idinkaga imaanaya u badan in madax hore oo xilal kala duwan xilligan culays idinku hayaan shakhsiyaad nigala bedelayna bedelkooda xilligan kuba kala idinku hayaan arintan goorma si rasmi ah u soo bilaabatay amba dawladda farmaajo mise dawladii Korea idinku soo bilaabatay waa mahadsan tahay xasan sheekh oo iyadoo iskaashata aan nahay oo gaadiidka ku wada nool nahay oo aan beel ka helo oo aan mid nahay oo mas'uuliyad jirin oo qaan jirin basuq jirin ayaa xasan sheekh niman wuxuu guddoonsiiyay laba kambani ah oo ganacsata waa hormood iyo nimanka la yiraahdo Hamas labada kambani buu xiray dekada 7,900 oo gaari la liis ku lahay 150 niman haysan buu xiray intii kale waa ka xiray waa madaxweynihii qaranka xasan sheekh maxamed ninka waxa sameeyay maalinta uu siyaasadeeyay iyo maanta inta ka dhaxlay midiyahan taagnay askar baa nala ku dalbanaya marka dawladda soo istaagno gaadiidka soo dhigno askartii wadanka ee qaranka oo shacabka loogu talagalay inay u shaqeeyaan oo wax sooraan ayaa intana ku dalbaday buutigu lagu tumanaya markii dawladii maxamed cabdullaahi farmaajo ay dhalatay anakoo u xunweyn oo ku iideynay cadaalad inuu yahay ama garsoora ama xaqaani ama wadani ayaa banaanka u soo baxay mudaharaad baa toyn gaadiidkeegii baa dawladda soo dhigay wadooyinkan soo tubnay 48 saacadood baan waxaan joognay dalkiilka dhaxsoon wax xildhibaan nooma imaan 48 saacadood markaan joognay nimankii kabariyaalka cusubiyada ayaa askarinta nagu dalbaday buudkana kula tubay subaxdii dambe kasoo horjeedka meesha xafiiska bakhaayada kafeega anakoo fadhina oo isugu nimid oo qoraal qorayna oo dacwada u qorayna dawladda ayaa qarax noo dhigay shabaab waa diiday shaqo kuma leeyin bay yiraahdeen ayaka nimanka gaadiidnida oo lixda bani ayaa ka mas'uul ah 3 nin oo ragii gudoomiye uu ku jiray gaadiidka halkaas ay ku xijaabtay arday fara badan dad badan meesha marayay gaari baa noo dhigay tasaayo doorayna oo agdhigay ayaa ku tag ayaa noo dhigay ayaka mas'uulka cidka mas'uulka ma waxay soo bilaabatay xasan sheekh maxamed oo hal sana haya ilaa yoomana hada meeshii aan lahayn ninkii aan lahayn cadaalad buu idin samaynayaa oo waxaan weynayn ee dooranay oo aan qood ku dooran oo aan qabiil ku dooran ee aan qadiyad ku dooranay maxamed cabdullaahi farmaajo waxa asaguna maalin qodobbo isma oran wardadkan dhibaatada ay haysaa iyo waxay ka cabanayaan xildhibaan xataa inta noo soo diray waraysiga nabadaysa yaab cadaalad darra inaan dawladdi jirin oo cadaaladi jirin oo islaamnimo jirin ee musuqmaasuq iyo jirta cusubiyada cadaalad darro taasa cadayno waa gartay ugu dambeyn afyeenay ilaa xilligan cid idin qabatay wax ma jirtaa inaba haleekaasee ma ay jirto tobanisa ka hor wasiirka gaadiidka ayaa waxaan u geeyay qoraal ku socday ra'iisul wasaaraha iyo asaga iyo gobolka
waxaan ku yidhi wax dhibkaan baana haysta wax noo qabo jawaabaa ka sugayaa ilaa haddeer kama aana helin oo ma aana sugina safar buu ka bixinaya waxaan marka kaa codsanayaa oo ay baaqaygaa u gudbinaysaa waxa madax meel ka sareeyo oo la salaaxa ma jirto madaxweyne cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yaha ra-iisul wasaare ninka la yaaho ra-iisul wasaaraha dowladda ninka la yaaho ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaadiidka gobolka maxaa cumar filis waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in kambaniyaalkaa nala kaga qabto oo nala ka qabto oo gaadiidka siduu ahaa mid qura laga dhigo waxaan kaloo codsanaynaa wasaaradda gaadiidka shirkad bayna tahay nimanka cusuriyadda oo tuugada ah oo waxay naga qaadaan lacag baada oo aan bilaa gaariga uusan ninkani keenin oo xaqdarraa oo aanan qaadi karin ayay naga qaadaan inana ka joojiyaa codsanayn ninka suuriya ninka la yaaho maamulaha dekeda oo asagaa ugu daran oo baabuurka 7 cusub 5 cusub 6 cusub wadada kusoo jiray foorayka dekeda markuu soo dareera kaa wareega bixiya intaas kasta ku dabo inana ka qabto ayaa codsanaynaa oo ku shaqeeya mataqaanaa corruptionka iyo laaluuska iyo xaaraanta iyo cusuriyadda iyo xaniiq qamar ku taagleynta inala ka qabto ayaa codsanayna aad baad u mahadsantahay.